shirka horta magaciisa ayaan rabaa inaan isla fahamno. shirku waa shir amniga looga tashanaya. waxaan rabaa warkayga intaana gelin nin baa hees tiriyey hees wuxuu soo faray heestaa in la dhammaystiraa la rabaa buu yidhi. ninkii dhammaystiri lahaa markaa inaan u bandhigno cid kastoo dhammaystiraysa. heestaas waxay ahayd boholyow daraadda banka geeriyaadiyo buuraha libaaxa leh ka hayaanta beeshii baqayadu ku nooshahay baqdin looga kala tegey. u bareera keligey waxaa hawsha iga badan igu beeray anigaba belewada shabaab iyo baabi'inta shacabkan. heestaa ninkaasaa tiriyey marka wuxuu yidhi in la dhammaystiray rabtaa. okay heestaa intaasaan uga gudbaynaa. heestaa in la dhammaystiro taa intaasaan uga gudbaynaa. tan kale aniga waxaan rabaa meesha howlgalkan iyo obereshannadaanu ka soo bilowdeen xodogaalaan u wada hayn. waxaan rabaa inaan wax yar iyadoon ahayn meediya la dul istaago waxa la yidhaahdo isdhaliilis. waxaa la yidhahdaa isdhaliilista waa tayada shaqada. haddaan la isdhaliilin oo aan dib u eegis la samayn oo aan la dhihin maxaa qabsoomay maxaase noo qabsoomi waaye. waxaanuna tilaab kastoon qaadno waayihii hore howlgalkaan ku jirnay gamagama waxa la etoobiyaanku yidhaahdaan af soomaalina isdhaliilis la yidhaahdo ayaan samayn jirnay way isdhaliili jirnay. waxaan dhihi jirnay howlgalkaasaa la fuliyey maxaa noo suurageliyey guulahaas qadarta alla ka sokay sidaasii saasii saas xogtoon qarsanaan noo suuragelisay madalan ka soo qaad. waxaa yimid habacsanaan maxaa guuldaraas lagu sababay. guuldara macali jiitaa keena makanaa keena tega timi waxaa keenay waxaas waa iska daari jirna markaa meeshaas. tusaale ahaan haddaan u soo qaato 73kii dagaalkii carabta ay galeen israa'il khaasatan suuriya iyo masar ay la galeen sababta ciidamada suuriya ku guuldaraysteen qaacidadeeda nin kasta oo ciidan ahaa ama waa garanaya. buurahan Golan High ee u dhaxeeya labada wadan ayay isku fidiyeen 600 kilomitir. waa la jarjaray marka dhaxda laga jarjaray. saxaralamoodka Siinayna qoladaana gashay sababta guulaha u keentana waxay ahayd habkay dhigteen ayagu ma dhaafin moogtaadii. lafteeda haddaa inta guulo badan isbilaqdo sida maskii baa lagu jarjarayaa. waxaan marka waxyaabo badan anoo hadda ka asluubaysanayna saxaafadda madaxweynaha dowlad goboleed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka stateka iyo jenaraal biixi jenaraal tawane xaqiiqada dadka reer hiiraan ee aan maanta afkooda ku hadlayo saraakiishan hareerahayga fadhida ama aan idhaahdo taliska xoogga dalka soomaaliya wuxuusan soomaaliya tarino idin tarayno soomaaliya waxaysan tarin ayay idin tareen taliska xoogga soomaaliya. inaad maskaxdiina gelisaan oo aad talada ku darsataana loo baahan yahay ayadoo waxaa lala dirirayaa cadow soomaaliyeed yihiin. runtii wixii waajibaadka loogu lahaa taliska xoogga dalka soomaaliya waxbuu ku daray. waxaan leenahay ama ilaahay baa idinka abaalmari doona ama dawlad soomaaliyeed baa ilaahay baa kolley idinka abaalmari doona. dawladu idinkama abaalmari karto waxa meeshaa ka dhacay. laakiin dadka reer Hiiraan waxaa laga rabaa inay xasuusnaadaan. ayagu ma abaalgudi karaane laakiin waa inay xasuusnaadaan. waxaan rabaa marka warkaygana ku soo koobo isagoo maaragtay wixii la sheegi lahaa inta badan kuma habboona inaan ka sheegno saxaafadde waxay ku habboon tahay inaan si gaara uga wada hadalno. waxaan rabaa shirka magaciisa inaan mar labaad ku celiyo. shirku shir amni waay waxaa looga tashanaya arrimaha amniga. aad iyo aad u mahadsantihiin.